السلام عليكم walaalayaal waan islaamay walaalkii farxaan kusoo dhawaada liveka waxaa waaye maanta waxaa marti nagu ah dr axmed sheekh axmed oo taqaaniin oo columbus joogo ohio columbus insha allah sheekhuna soo dhawow ka faa'iidna maanta dhanka mental healthiga oo ka qabo islaamka iyo communityga dhibaatooyinka ka yaalo iyo wuxuu naga warami doonaa sida looga hortegi karaa iyo dhibaatooyinka uu keenay mental health marka mental health waa broad waaye waa arrin aad u weyn waaye laakiin waxaan rabnaa inaan dhan badan laga fiiriyo dhanka clinicada dhanka oo scientifically dhakhtariinta inoo sheegeen wuu jiraa dhanka diintana way jirtaa sida nooga sheegtay iyo culimadeena marka inaan arrinkan waxaan rabnay aan ka hadalno topican marka insha allah dr axmed soo dhawow ما شاء الله ودوهي بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله marka hore ku salaam sad farxaan Allah ku barakeeyo adiga iyo walaalaha kalaba Allah idin barakeeyo juhdiga umadu qabanaysid gaar ahaan reelow fil Kentucky ilaahay ku xifdi miisaanka Allah ku saaro walaalaha daawanaya meel waddanka joogan waa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah taala walaalkeena soo sheegay mental health ama jirada maskaxda ama dhimirka si dadka qaarkood u yaqaanaan su-aasha kuwa turta marka hore loo baahan yahay in laga hadlo waaye jirta ma tahmise ma ahan waaye taasoo su-aasha u baahan su-aasha waxaan weydiinaya waxaa waaye walaalaha badi Soomaali haddaan nahay mental healthiga waxaa weli ku jirnaa state of denial aan ku jirnaa oo inuusan jirin aan ictiqaadsannahaybo waxaad ictiqaadsantahay inuusan jirin daawadiisa ma helaysid marka hore waa inaa ogaatid waxaan wax jira waaye taas number one wax jira waaye jiro kasta laakiin oo ilaahay keenay ilaahay inuu daawo u sameeyo taas inuu ogaatid waaye inuu jiro waa arrin xaqiiqi ah daawo inuu leeyahayna waa arrin xaqiiqi ah waaye marka yuu ku dhici karaa qof kastoo ku dhici karaa aduu kugu dhici karaa anuu igu dhici karaa jiradana waa jirada ibni aadanka saa ogtiin laba qayb oo ka kooban yahay baadi iyo ruuxuu ka kooban yahay baadigaaga jiriyaa ku dhacdo dadaa ku takhasusay maanta markuu madax ku xanuuno waxa u tagaysa dhakhtara u tagaysaa waa lagu baaraa Thailand waa lagu soo siinaa ibuprofen waa lagu soo siinaa soo baxday waxaa ku dhaca maxaa dehydration kugu dhacay faleeb baa lagu soo duraa waa soo dhaqaaqday ini daawo u baahan tihid hergaba kugu dhacay sore throat kugu dhacay ini diarrhea kugu dhacday wax kastoo kugu dhaco daawo lagu soo siinaa الشفاء بيد الله لكن أسباب تقادن جرى كلا وحاجة لكن جسمك أن كل عنه روح ذا كل عضو وقفك إنه إصلاح له عرفت هاي تراها الجنون فنون أنا وحنا قانا يعني سؤال هذا أنا سأفير ستي 0 and 100 بنتاجنا هاي حد من نقضي either white or black بسانا هاي وجري area ملحن قف كان ووالين هاي إن ليراه ووالين قفك وحك عرّا أنت أصواه qof maanta jiradan uu qaba hadii leero isla markuu waxa lagu dhajina waa waalan yahay ma waalno qofkan waxaasi ka yihiin si wax ka noqdeen fikirkiisa ziyaade qofkaas oo kale wuxuu naga mudan yahay haddaan nahay community Soomaali haddaan nahay wuxuu naga mudan yahay qofkaas inaan soo dhaweyno aan sii raacdeynin haddaan sii raacdeyno dhibaatooyin badan ka imaanayso dhibaatooyinkaas hal u taaban doona insha Allah taala laakiin general muqaddimo waxaan rabaa inaan idin shorto marka hore jiradan jirto inay tahay waa in la ogaado way jirtaa qofkii diidana waa qof oo dhaho kale si hadda sa arkis corona sida loo diiday exaggeration ha lagu sameeyo la rabo laakiin sida loo diiday hadda waa la aqbalay marka wax walba stage walba kansarka maraa la diidi jiray tii bishada maraa la diidi jiray qofka tii bishu qaba markii la waa qof maqabi uu dhihi jiray wuu nixi jiray so wax walba waxa jirta maray dadka diidayina jirto laakiin xaqiiqo waa jiradan oo maskaxda waa jirta waa qofka maskaxda أنا لا كل مي إذا نحط لا كل مي ضد بدن أنا شيء كيستي قف على ماذا بدن لو قرطا جرت إن شاء الله إذا لو ذاك الدون إن شاء الله تعالى لكن جرت هواية حاول بهنا مركا محيط حي يسيل وهذا إن أجذبنا لكن أنكسو جذبنا وحن وحجر ما إن أنكسو جذبنا تاسع إذا كل تلا إن شاء الله تعالى والله أعلم ما شاء الله شكرا سؤال شيء لو حتى هاي كويت حنون كان أو mental health يوكو دعا مركا سؤال في عموية يوكو دعا dhibka waxa waaye yuku dhaca su'aashaas waaye waxa la aqoonsan yahay dadka laba u kala baxaan qaar waxay taqaasan yihiin dadka gaalada bisan ku dhaco dadka taqaasan jirada inay tahay depression waaye
وقفك ستريس ku dhacay mental hada idin soo gaabiyo qof xoogo stress ku dhacay ka bilowday meesha ka bilowday meeshaas waaye qofkan si wax ka noqdeen meesha ka bilowday very simple waaye qofkan mental health wax gaar markuu leeyahay ma qof wala imtixaankan wax ku soo noqdaa laga yaabaa qofkan shahaadada markuu qaadan lahaa final ku qaadan lahaa imtixaankii ku dhacay muxuu ka baqaa marka community warninka 5 sano imtixaan dhiganaysa maxaa jaamacad dhiganaysa maxaa meesha u dhex fadhiisa wuu asaa sheekaysanaa marka meesha ka bilowday waxyaabo simple ay ka bilaabataa bal waxay ka bilaabataan ku sheega sometimes gabar markay ilmaha dhasho markay dhashay kadib haddii wayse qof garab istaago waxaa laga meesha inay ka bilaabataa laga yaabaa nin xaaskiisa buuq guriga laga soo furay inay ku bilaabataa laga yaabaa yay ku dhacdaa markaas su-aashidaan kusoo noqdo qof walbay ku dhacdaa soomaaliyay ku dhacdaa muslimay ku dhacdaa carabay ku dhacdaa african americanay ku dhacdaa whitekay ku dhacdaa waa jirana qof ma lahan jiro qof ay ku hor istaagaysa mala jirooyin khaasaa jirto oo virus khaasaa jiro oo markaan respiratory qaadanayna noo sheegay hadda cystic fibrosis oo kale CB oo kale CF ta kale cadaanka bisay ku dhacdaa cystic fibrosis jiro la dhaha waaye waa neeftana waaye qofkaas muxuu sameynaa xaaqada iska candhuufta xaaqada oo xabadkiisa ku dhaga ma soo saari karo markaas vibration lagu xiraa jirooyin saas oo kale khaas way jirtaa oo dad khaas ay ku dhacdo cystic fibrosis oo kale oo dadka cadaan hatta markii lagu leeyahay calaamadaha lagu garto maxaa qofka inuu white ahaado waay ay jirada cadaanka isku dhacdo waay marka laakiin jirooyinka caadiga oo caama oo tan oo kale ah qof walba ku dhacday binaadin ku Soomaaliya ku dhacday anaa garanay Soomaali badan ay ku dhacday dad badan ay ku dhacday anaa garanay marka qof walba ku dhacday iyo ku dhacday su'aashaada dad badan ay ku dhacday ma sha Allah marka hadda anaga Soomaalinahay waxaan aragnay su'aashan ku leeyahay waxa way taas ilmaha inta ku dhashay oo inta ku koray youthka su'aasha ku dinay youthkan oo inta ku koray iyo qofka weyn oo inta yimid kee high risk u yahay labadooda waa arrin fiican dadka hadda u badan ee ku dhacdo waa dhalinyarta yaryarka waaye hal mar isu giyaa hal mar isu giyaa Yes. No one is here. No one is here. I'm on محاضرة كده. No one is here. Okay. Sorry maanta xaq guriga ka soo galaayay oo waxaan ugu soo galay. Okay. Waxay ku dhacdaa waxa waaye labadaba waa ku dhacdaa laakiin waxay aad ugu badan tahay waxa waaye caruurta yaryarka waaye. Hadda inta oo garanayo caruurta yaryarka sababta waxay tahay qofkan weyn xoogo waxyaabo qaarkood oo ceeb u arkaa waxyaabo qaarkood iska ignore gareena laakiin cunugan yariiska peer pressure ku dhacay iskuulka laga yaabaa sometimes in oo bully lagu soo sameeyay waxa laga yaabaa sometimes maxaa keena ilmaha inay addicted ku noqdaan draaga maxaa keena saashi mis weydiiseen overdose inuu qofkan kale maxaa keeno mis weydiiseen su'aashaas cunugan hadduu fiyow yahay boqolkiiba boqol fiyow yahay oo boqolkiiba boqol fiyow daawada muxuu qaadanayaa maxaa u baahan just waxaan taabana pointidan taabanayo waxaan rabaa inay ila fahamtaan bas maxaa keenay cunugan inuu kiniini cuno he's missing something waxaasuu rabaa marka inuu daboolo ilmaha marka yaryarka ee bidaad dhalinyarada ah waa u badan yihiin gabdhahana wuu ku dhacaa wiilashana wuu ku dhacaa qofba qofku wixiisa ka qarsadan wuu uga dhac badan yahay hal waxaan idin sheega qofka markuu hadlo xoogo waxaa laga yaabaa inay wax ka badbaadaana laga yaabaa laakiin qofka markuu qarsado way la degaysaa maamada Soomaaliya waxa qarsato waa ku qarsadaan oo kale aan soo xasuustaa dad badanaa jirta overdose u dhintay maxaa keena overdose u dhinto mis weydiiseen kiniinuu soo qaadana aad u isticmaala wuxuu rabaa inuu raaxaysto waxa iga maqan uu kule maxaa ka maqan asiga ma yaqaan wax ka maqan waxa ka maqan qofkan waxa ka maqan ruuxda wax ka maqan tahay maadaam ruuxda wax ka maqan tahay missing something ila meeshan waxa u baahan tahay la siiyo qofkaas jiradaas uu qaba marka haddii waalid aad tahay ama qof mas'uul aad tahay dadkaas waxay ka mudan yihiin inaad garab istaagtid soo dhaweysid maaha in la midibto kooro waalidiinta qaarkood waxay sameynayeen cunugooda markay arko war mawaalanta maxaa soo hadloo sidaa leeyahay cunuga meeshuu soo dhawaala wuu sii carara mawaalanta markii leeyahay cunug waa sii carara mawaalanta hadihina waxa tiraa what do you missing maxaa rabta la sheekayso waxyaabo very simple lagu sheegay sometimes waa loo yeelaa hadalkiisa loo yeelaa
sometimes ها la waa saxsantaha lagu dhahay sometimes waxaa lagu daaweeyaa si wuxuu asiga rabaa lagu daaweeyaa si kale waa loo sameeyaa arrintaas haa waa jirtaa runtaa waa sax waa lala raacaa ilaa marka dambe la daaweeyo qofaa ku dhaa waa lii daba socdaa one of the funniest thing waxaa waay qof maalin wuxuu ku dhaartay in la daba socdo ani waa lii daba socdaa dadka qaarkood marka qofku wuxuu leeyahay war maxaa lagaa daba soconaa ninkan xunoo faqiirka oo haatay oo doolarka aan haysanin oo maxaa lagaa daba soconaa what do you have ninkan wuxuu kale waa lii daba socda wuxuu ictiqaadsan ninkan in la daba socdo khalaas waxaa tira sax waa lagu daba socdaa laakiin anaa la hadla qofka kulda daba socda ninka waa lala fariistay maxaa la yidhi okay waa lagu daba socda markii la arkay ninkan waxaa la yidhi sax waay anaga naga warso waxaa la you know what hadalkaa sheegaysa sax waay dowladda waa ku daba socotay waa soo ogaanay laakiin you know what we solved it taargadaada taarga qalab qof kale ay kugu qasayeen waanu ku raaligelin oo kuu soo diray mar kale kuma dabagalaayeen very simple ninkii maalintii wuxuu ka dambeeyay waa iga herin wallahi uu yiri qof la hadlay ma lahan qof sameeyay ma lahan so waxa sometimes qofku waxa la isticmaalaa laakiin qofkaas oo kale ma dhihi kartid war wax ku haya mala ordaga tago qof aan la tahay maya waa la fariista qofkan adii kale qofkan waxa ku dhacay inuu soo aruuro intuu ku soo aruura laba mid waay guriga isolation number 1 lagu garto waxa ninkan that person will isolate himself or herself qofan hartana qolkeeda isku xiraysaa qolkiisu isku xiraa bal sometimes telefoonka ilmaha ku waalay xataa inuu tuuraa laga yaabo telefoon uusan gelina laga yaabaa haddii aad cunugaaga isolation inuu samaynayo ugu one of the sign waay marka one of the sign waa ugu taas insha Allah so signka u salaabano so maxaa lagu gartaa dadka in hadda inta community la shaqeeya dad badan arkay a lot of people dhibaato aniga yani qofka markuu ama overdose sameeyo ama markuu isdilo waxaa la dhahaa qofkan saanu samayn jiray but waxa ku soo muuqanayso qof kasta wuxuu sheegayaa qofkan inuu qashka burnaayay yes a lot of things marka how dadku u ogaadaan qofkan waxa soo haya si at least loo hortago so si loo kara waxyaabo loo tarasho arrin qofkaas waxa ugu horeeya uu sameeyna horta waxa waaye kala hadal uu sameeyna oo ku imaana hadduu ku jecel yahay wuxuu niyahow arrintaas ha jirto hadaa aragto qofkan hadal aadan ku aqoonin for example wuxuu ku leeyahay waa lii sixri waa qofka wanaagsan yah waa lii sixri waa lii daba socdaa ma garanay maalmaha si wax ka yihiin telefoonkii waa taaba lagu sameeyay gaari daba socdo dadku waa inacban yihiin waxyaabo wuxuu sameysana filin uu sameysana waxyaabo lagu garto waxaa kalo taas markuu ka soo gudbo oo wax lala qabo wuxuu soo galay xad marka step 2 isolation oo keligiis meel isku xiro cunugaaga hadaa aad keligiis inuu meel isku xiro waa the second sign and the most important sign lagu ogaado waay okay step koowaad maxaa uu soo sheekeynaa markaas loo baahan yahay marka in la qabto qofka oo la garab istaagi leeyahay kale inuu taa waxa will solve it sax way arrintaas waa jirtaa hadaa aragtay very early time adi raac oo la sheekayso maxaa waa soo aragtay sheekintaa ku aragtay la sheekayso waqti geli dibka jiro ma taqaana qofka waqti ma gelinayna hadhowna waa ka shalaynayna markuu xadka soo gudbo oo sheekada soo gudbo ana wali daba socday kana ligu sameey telefoonkii waa la daba galay waa li soo waqay waxyaabo ku sheega iskuulka ardayda waa inacban yihiin waa li soo fiiri maxaan gaari gadaashi joohoon ugu yeeriyay markaan baxay waa ka soo cararay waxyaabo ku sheega oo safety ku saabsan then markuu intaas gaaro wuxuu galay khalaas wuxuu i'tiqaada marka waa sheegtay waxa sheegaysay no one helped you therefore help yourself how can I help myself how marka I have to isolate myself why okay skeptical and then exactly no markuu intaas markuu galo haduu isolation waxa laga qabo waayay xad marka wuxuu gaaraa I'm not worth it anything I'm worthless maxaa sameynaa marka qashin kasto oo maskaxda dilayso ama badbaadinaysa cuno step kale marka waxa way drugs iyo kan isticmaal markuu meeshaas gaaro oo iidan wax keeni weysay xadka u dambeeyo u gudbaa marka oo suicide inuu ku fikiro hebel wuu isdilay muxuu isu dilay goormu isdilay maxaa ku horeeyay inuu isdilay waxaas dhan loo baahan yahay markii gadaal laga wada hadlo marka stebyadaas oo maraa stepta koobaad oo calaamad ugu fudud lagu garanayo waxa tan waay tan hadaa aragto qofka inuu isolation sameeyo asxaabtii uu ka taga masaajidkii ma imaanayo
banoonigu ciyaari jiray ma tagaayo keligiisaa gaari wato xoogo dadka geesuu fiirina cabsiyaa ku jirto mar walba geesuu fiirina science-na wax lagu garta waaye marka qof saas oo kale markuu waxa u baahanta marka inay garab istaagto oon qabanaa loo baahan yahay before it's too late. Okay. So waa runta sheekh intaas kugu raacsana intaan inaa ka hadashaan waa arkay dadka guryaha ciyaalka inay basement u galaan ilmaha Soomaalida badanaa basement-iga galaan ay marka soo baxaan masaajidaha ka go'aan ciyaalka buumiga la ciyaaraya way ka go'aan and then saa sheegto waaye waxay isticmaalaan drugs waxay u baxaan maskaxdooda si ay u iloowaan waxaasoo idil they start using drugs marka waxa ana marka sheekh sidee marka qofkaas loo caawin karaa let's say your brother aragtay ama wiilkaaga aragtay ama walaalka aragtay qodobadaa sheegtaa lagu arkay see loo caawin karaa marka su'aal fiican waaye marka intaas ku aragtid see loo caawin karaa laba mid waaye inaa adiga khibra u leedahay because ma rabna adiga waxaad rabtay inaa hagaajis inaa halaysid ma rabno haddaa khibra u leedahay stepta loogu talagalay mar haddaadan khibra u lahayn ama qofkan hadalkaaga uusan maqlaynin ama aad isdhehaysa you cannot do anything waxaa kula xiriirtaa dadka arrimahan ku takhasusay maraykanka kulli adaa organization ku jirta iga taqaanid 2022 dhammaadkeeda maraan arkay research la soo saaray maraykanka mental health wuxuu marooyay close to 78% uu marooyay waa dadkii oo wadanku dhashto dhaqaalaha haystay oo yani 78% taariikhda maraykanka ma gaarin anaga maraykanka ku noolnahay will affect us marka qofka marka see lagu daaweyn karaa stepta koowaad marka waxaasoo kale ku aragtid tilaabada koowaad waxaa la soo xiriirtaa dadka waxaan ku takhasusay raadi stepta koowaad ma rabina meel xun ka bilowda fasaluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun haddaadan aqoonin dadka wax yaqaana weydii dadka la tasho meeshaasaan joogay maxaa sameeyaa waxaa laga yaabaa cunuga kiis inay very simple tahaa laga yaabaa cunuga kiis inay chronic noqotaa laga yaabaa laana jirada waa acute ama chronic haddii mar chronic noqoto waxay u baahnaanaysaa fadhi joogtay u baahnaanaysaa haddii acute tahay waxaa laga yaabaa hal mar laba mar nala fadhiiso cunuga good to go uu noqdo marka saa ku ogaatid waxaan kula talinaa la tasho dadka yaqaana la tasho dadka qaarkood waxay ka cararaan isbitaalka cunuga inay geen ha ka cararin dadka ku takhasusay oo mental health ku takhasusay inaa u geysid ceeb ma ahan cunugaaga waa geysa macnihiis waa waalan yahay ma ahan cunugaaga aduu cunugaaga yaa haddaa maanta qarsatid dhibkiisa qarsatid because dad ahaan aa ka qarsanaysid beri dhibaa ku imaanaa you will lose your adiga waa qofka cunugaaga waa ina dad kale ma ahan forget about other people that is your kid maxaa kaa galay dad kale maxaa kaa galay waxay ku dhahayeen waxaa samaysaa waa arag dadka ku takhasus aad isbitaalka tag organizationada ku takhasus tag klinikada ku takhasus tag individuals ku takhasus weydii wax la hadal la tasho masaajidka geey dadka culimada ku takhasusi geey ha geynin meel qaarkood oo kul cunugeeda waalidiin qaarkood wuxuu cunugeeda salaad subax raba inaan keeno quraan lagu aqriyo markii quraan lagu aqliyo meesha waxaa leeyahay cunuga imaamkii ama iyada waxay leedahay ama waalidka wuxuu leeyahay war cunugii maalmaha si kale uu isla hadlaayo quraan ha lagu aqriyo cunugana meesha uu fadhiyaa biro kale uu sii keenaysa waa isla hadla cunuga wuxuu kala amnaa goon with you hooyo aabu ku raacay aan isla hadla aan wafiyoba cunuga cuqdaaba gashay meesha waa isla hadlay markii la yiraahdo yani soo waalan yahay waa حتى the way we treating the way we talking we have to look inaan fiirina waay halo baahay marka arrinsan ku daaweyna sida ugu fudud ma inta waqti weyn ahaysan point aan taabanay waa dadka ku soo wac don't do any step dadkaas la hadal la fariiso labada dhinac ma diiniga iyo caafimaadka dadku takhasusay wac hadaa isku heshid qof labada isku haysta fine alxamdulillah waa huwa si soomahan culimada tag maxaa sameeya adkaartaas ku aqri cunug very simple diin ahaan xataa aduu xatira cunuga xatira hooyo habeenkii weysa ku seexo one of the thing waa laga badbaado weysa ku seexo okay weysiisa markaa weysiis kadib dhinac midigta u seexo aayatul kursi aqriso subax markaa soo ka adkaarta aqriso salaada jamaaco ma u bixi karabo salaada tuko waxyaabo qaarka oo cibaadada ku buuri inuu sameeyo وما هي يتقي الله يجعل له مخرجا دينا عبادة كبوري أذا لقى باهية هذا كبورين كرن أما هذا كرنين مساجد كجي أما علماء ذا أما شيخ أو شيخ أما دليرت يوث أورجانيزيشن ذا أو شيخ هكوجي ماذا هلا هطنا هلا فريستان عنو جاوا إنه كبحو
وإنه كبحو isolation سيدا أو نقصها بدن واي حتى عادي صبح ماشي باسكتبول كان ساكر كان وو كدي صبح let's walk out لمك صبح بنانك عادي نسولوينينا very simple وسولوينينا واستبتكوا بدا أجس واي مركز سمي إن شاء الله تعالى dadka oo ku takhasusay raac waxay ku amraan ama waxay kula taliyaan samee khayr Allah ku siiyo dhibka jira ma taqaanay daawa la soo siina wargaalka cunugu raba inuu dilu leeyahay daawadii la soo siiyay kulli qashku ku dara waxaan ku dhahay marka maalin qof oo wuxuu yiri war ninkan waa beenaalo waa markaas markuu dhameys kadib oo markaas waxaan ku dhahay adiga marka xanuunsan tihiin dhakhtar ma aaday ha daawo ku soo siiyaa waa cunta way kaas uu cunta kan u diidaysan ku dhahay way kaas uu rumeys kan aadan rumaysanaynin sababta ma taqaana state of denial aan wali joognaa وديدنا وحسنوج ما أقبلينه we have not accepted yet ما باعتراف سنينبو مرك والد كحاول مرك وراي رافع وحن وحجر إنيهين wow yes because وحقورة عبون تيجي هذا state كان Kentucky Department of Education كا وحيسو صارين عيالك high school كدكتو state كنا بقول كيوا 35% waxay dhaheen one time I wanted to commit suicide 35% 35% waa more than 1% waa boqolkiiba waa 3 meelood meel ka badan waa wow before COVID was 15% of the ardayda yes so markii COVID is increasing saas dhahana that one is like 2021 kala sameeyay so it's going up by now maybe it's like 50 maroya waxay keenayo saadahda waa isolation kii abad because when COVID u dhacay isolation ka guriga la isku haray so people they stuck in that position inay ka soo baxaan waa marka yes hatta saadahda waa hatta dadkii shaqeynaya guriyaha jooga hatta waa dhibsadeen dad guriyaha ka shaqeeya qaarkood waa they hate it they want to go out one time so mostly marka dadka u dhex jiraayo waa mental health-gaaga ka mid tahay that's how you cope exactly رسول صلى الله عليه وسلم مركو ده فيري ولا له مركو رسولك ده هاي أفشوا السلام سلامته فافية هير عيار ما أنا هيريسني سلامته قف سلام عليكم مركا تراهيد وحو دريما he is part of the community مركو قفكو سلام you will be happy one of the story أو ولا كان شيخ رسيد أمر أن كم مقلي ونوشي أو كم مقلو حي إهات maalin wuxuu yiri nin oo cadaan ah California ka soo baxay wuxuu go'aansaday maanta wuxuu buundada maraa hadduu qof islaamo I will save myself hadduu qof islaamo wuxuu ballan ku qaday buundada inuu iska tuuro okay wadadii uu soo maray family Chinese meesha soo maray he was waiting in a high dahan they didn't say hi buundadu fuuru iska tuuray qisada waxaan ku ogaanay asiga badbaaday buundada isku tuuray wabiga isku tuuray waa ilmihiin kuwa safe waaliim duwaale safe gari waa la soo saaray war haabinaalda qisadii uu ka sheekay marka isolation ka dib uu leeyahay diinteena diin jamaaca waa masaajidka jamaaca ku tuko jimca jamaaca lagu tukado hal salaamo hal ziyaarto afshu salaam qaraabada hal xiriir waxaas dhan waxa waaye you are part of a big community hadaa ka soo go'did dhiba isu keenaysaa marka والله ما شاء الله شيخ أقول عسنا أي 100% مركا مر أنا ميديكالك وصوصة ميسي سو مركا دينتا سيدا مركا دينت إنا أورعد هذا أنا وكال example أقصينا one way mental health وقف كستا عحمد كسكمتاي sometimes we go to قف كستا أنا حاجتا الحمد لله وي دور سنة كهر مركي صلاة إنه كنت كذا مساجد كصلاة صباح الحمد لله وي I wouldn't say stress because mental health stress markan waa stress waa shaqadii ku badan marka tukado stress marka maalinka tukanin wax walba ka qaldaad sameeyaa so baltaas noo taa halka pointigaas khayr Allah ku sii wax ma pointiga ugu horeeyo qofka loo baahan inuu ka bilaabo waxa salaada waa maalintaada maalin cusub ku bilaabanayso maxaa ku bilaabaysaa salaada ku bilaab hal isteban gadaal u noqona marka sariirta ka soo kacdid ilaahi u mahad celi الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتنا وإليه النشور إلهي جانس وحكسي أن ذكر أوسنسين ذات بضو حاجرته إلهي أوسنسين قارئ وجيف أصوجيف وإنت سوما مقلين هذه إلهي جانس كالوكسي نيو داي وكسي
markuu mahad celi waxaa tiri alxamdulilahi aladii axyaanii bacda maa amaatani wa ilayhi nashuur adoo sirtaada joogtid waa weysaysid salaada subax jamaaca kusoo tuko markaa kusoo tukatid kadib adkaarta the most important thing that you must maintain waa adkaarta waa kitaabka xataa aan qori ducada waxaan u bixi maalin walba farxad maxaa keen len adkaartaada markaa ku cabtid oo samaysid farxadaa ku noolaanaysa maalin wal farxad adkaartaada aqriso farxadaa ku noolaanaysa salaada subaxa jamaaca fiiri inta protectiona ku jirtid gurigaaga markaa ka bixaysid waxaa leedahay bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata illa billah by saying that afar waxaa helaysaa kow waxaa lagu leeyahay malaga wuxuu ku leeyahay kufiita wax walba waa lagaa kaafiyey stress inuu kugu dhaco waa lagaa kaafiyey wawaqiita dhibaato kastoo ku gaari lahaydna waa lagaa ilaalina xabad inay kugu dhacdo gaari inuu kugu dhaco waa lagaa ilaalina wahudiita waana lagu hanuuniyey maalintaas any decision aa qaadanaysa waa lagu hanuunina watanaxa canhu shaytaan shaytaankiina wuu ka leexday that first protection aa soo qaadatay masaajidkaa imaatay salaad subax jamaaca ku tukatay you get second protection meeshaa fadhiisatay adkaarta aqrisad adkaarta ugu muhiimsan salaada subax kadib aa ku dadaalaysid 1 ayatul kursi 2 qul huwa allah qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas each on 3 times number 1 waxaanan ayatul kursi number 2 waxaa waaye ikhlaas iyo mucawadateynka oo 3 times each marka intaas tiraahdid hal wax kale ku darso بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سدح مر إذا نكون درسه you saved maalintaas marka insha Allah casirka markii la gaaro jamaaca markaa ku tuka duhurka waa tukanaysaa laakiin casir dambe markaa ku tuka jamaaca tukatid sidoo kale asina adkaarti intii subaxii aqrisay haddana aqri gurigaaga markaa soo gashid waxaa ku soo gashaa bismillaahi walajna bismillaah ku soo gal rasuulku wuxuu noo sheegay laba shaytaan iska hor imaana shaytaan cayilan iyo shaytaan oo dhima raba lafi maqaare markaas war maxaa kugu dhacay wuxuu leeyahay maxaa sameeyay ninkiina subax markuu baxayn adkaar u aqrisana guriga markuu soo gal adkaar meelan jiifti waxaan cuno ma haysto laana hadda markaas uu adkaarta aqrisiisa markaas soo gashid shaytaanka meeluu jiiftan wuu helay wuxuu cunana wuu haystaa ku talagal taas dabo cuntadaadu kula cuna sariirtaaduna kula jiifana bustahaagu kula daboolana go'aagu kula daboolana ku talagal taas yes ما شاء الله that's good جزاك الله شيخ waxa waaye point fiican ka hadalnay dadka ilaahayna ku soo hanuuniyo hadalka u sheegtay amiin hadina qira ku siiyo waqtigeena la gaaray waxa ka dhiman sakina ka dhiman let's see inuu qof su'aal nagu soo weydiina commentiga I will give them 50 seconds wano hartay hadduu qof soo jawaabo let's see qof su'aal qaba haduu jiro you can go commentiga and write the question ka qabtid let's see we'll come back inshallah mar kala soo laaban doonaa next week waa dhamaaday marka inshallah wax comment another question and I will download this video on YouTube and gelinayna you can go back and watch inshallah Sheikh Ahmed jazakallah khairan thank you aad u mahadsan tahay ila qara kasi amiin wa inoo madam inshallah عليك